kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada mar kale barnaamijkeena labaad. maanta waa sabti, taariikhduna waa 14 maarso. haddaba barnaamijka oo aanu idinkugu hayno qodobo kala duwan oo ku saabsan dhammaan wararkii ugu waaweynaa ee soo kordhay dagaalka ka socda bariga dhexe ayaynu ku bilaabaynaa. ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ayaa sheegay in ay cayrsadeen oo ay ka cayrsadeen goobihii uu ka dagaalamayay markabka ugu weyn caalamka ee diyaaradaha xambaara ee uu Mareykanku leeyahay, kaasoo la sheegay in weliba shaqadiisii uu joojiyay kadib markii dhinacyo kala duwan la isaga yimid oo nagta laga saaray. markabkii ugu weynaa ee dunida lagu waabinayay ee lalahaa waa markabka ugu weyn ee diyaaradaha xambaara oo weliba nuclear ku shaqeeya oo wax u soo dhowaan kara aan la arkin oo maraakiib kale ay dhinacyada ka joogaan ayaa waxaa lagu leeyahay hadda waa isi sii daayay carar. maalin hore maxay lahaayeen dab iskiis ahaa kacay, koronto ka dhashay. hadda waxay leeyihiin ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ma jooga yiraahda, waa cayrsana kaas, weliba khidmadii ama shaqadii uu wadayna waa joojiyey. Mareykanku weli wax jawaabo lagama hayo. haddaba markaan idin tusoo wararkii ugu dambeeyay telefishinka Al Jazeera ayaa goordhow qoray, wuxuu leeyahay afhayeenka ciidamada Iiraan ayaa sheegay inay ku qasbeen markabka ugu weyn, kaasoo ay sheegeen in ay markaa cayrsadeen oo weliba ay shaqadiisii joogsatay. afhayeenka ciidanka Iiraan ayaa sheegay markabka weyn ee dagaalka Mareykanka inay markaa cayrsadeen oo ay ku qasbeen inuu cararo, waxaana ay sheegeen fariin ay u direen dowladaha islaamka oo ay ku yidhaahdeen ha ku kalsoonaanina awoodda uu sheegan jiray Mareykanka, waxaana yidhaahdeen oo weligiin ha aaminina inaan layska difaaci karin. marka waxay yidhahdeen ninkaa waxa uu idiin sheegi jiray wax ka jira male, caalamku wuxuu u sheegi jiray waa kaa aan cayrsanayna dheh. iiraaniinta dhahay dowladaha islaamku waxay yidhahdeen ninkan warkiisa dambe ha dhegaysanin, khataraan ahay, kanaan ahay, wax uu yahay male dheh. waa la iska daba tegay meeshaan. marka warkaas isaguna wararka cusub ayuu ka mid yahay. markabka weyn ee dagaalka yidhaahdeen marka waa cayrsanay. marka sheekadaas weli marka Mareykanka war lagama hayo isaga, inkastoo mar waa iska inkaraan ayaga mar walba haddii xataa ciidanku hadli waayaan taraama iska soo qoraa, markuu arko warkan asaga iska soo jawaabaya, wax loo iska soo qoraa. hadda waxaa tusaale kaaga filan jirad la yiraahdo Wall Street Journal ayay soo xiganayaan warbaahinta. waxay leedahay 5 diyaaradood oo waaweyn, kuwa weliba shidaalka qaada ah, waxay deganaayeen oo ay yaaleen saldhig la yiraahdo Amiir Suldaan oo ku yaala Sacuudiga. Iiraana nagta ka gelisay yiraahdeen, 5toodaas Iiraana garaacday. taraamuu soo booda saa soo jawaabay, maaragtay way fiicayn diyaarada mida wax yar gaaray iyaduna way duuli kartaa. asagiya wuxuu noqday afhayeenka ciidanka. ilaa hadda ciidamadu waxay ku wareersan yihiin wixii war asaga ka horeeyo. aalad wuxuu leeyahay True Social lira sida Facebook iyo waxaan u shaqeyso asagu leeyahay jirta, taasoo isaga soo qorta asaga, isagoo cidna wax weydiin asaga ka jawaabaya lagu leeyahay. haddaba markaan idin tusoo wararkii ugu dambeeyay, wakaaladda wararka Anadolu waxay soo xiganaysaa Wall Street Journal, journalka la yiraahdo, waxaana ay leedahay 5 ka mid ah ayay yiraahdeen. wargeyska Mareykanka wuxuu yiri 5 ka mid ah diyaaradaha Mareykanka ayaa weerar Iiraan ay ku qaaday saldhigga Sacuudiga, maaragtay dhibaato ka soo gaartay. saldhig Sacuudiga ku yaala ayay dhibaato ka soo gaartay. haddaba warbixinta way sii socotay, waxaa leeyahay journalka Wall Street Journal ee ka soo baxa dalka Mareykanka ayaa maanta Sabtida wuxuu sheegay in Iiraaniyiintu ay garaaceen oo ay bartilmaameedsadeen saldhigga Amiir Suldaan ee ciidamada cirka Sacuudiga, kaasoo la sheegay in markaa dhibaato loogu geystay 5 ka mid ah diyaaradaha iyagu shidaalka qaada ee Mareykanka uu leeyahay. waxaana la sheegay
in markaa warkan laga soo xigtay mas-uuliyiin maraykana oo la yidhi 5 diyaaradood waxay ahaayeen kuwa shidaalka qaada oo markaa waxay la kulmeen dhibaato ka soo gaartay duqaymihii Iiraan ay halkaa ka fulisay ma ujeedaa mas-uuliyiin maraykana sheegay in 5 diyaaradoodba jugta laga geliyay oo nagta laga saaray 5 diyaaradood oo waaweyn meesha marka dadka falanqeeyaashu waxay leeyihiin waxba ku jira Sacuudiga Imaaraad waxaan wax loogu laalaabana Iiraan ciyaar ma diyaaradahan shidaalka meesha fadhiya way soo kacayaan hawada galayaan shidaal ay siinayaan kuwii wax duqeynayay shidaal siinayaan haddana waxay ku soo noqonayaan Sacuudiga shidaal kale ka qaadanayaan markaas sidee loo weeraray marka macquul ma noqonaysa leeyahay marka Trump ka soo jawaabay markii journalka Mareykanka uu qoray 5 diyaaradood in la qaramsaday isaga soo hadlay haddaba aan idin soo wararkii ugu dambeeyay Al Jazeera waxay leedahay Trump wuxuu yiri waxa ay la kulmeen diyaarada Maraykana ayaa dhibaato ay soo gaartay xadidan haddaba madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa wuxuu leeyahay waxaa jira diyaarada Mareykanka oo wax dhibaato xadidan ay soo gaartay oo kooban dhanka kale madaxweynaha Mareykanka waxa uu yiri mid ka mid ah saldhigyada Mareykanka ee Sacuudiga diyaarada ku sugnaa ayaa waxaa jira weerar in lagu qaaday wuxuu haddana leeyahay ma jiro wax dhibaato iyo wax burbura marka waxa uu sheegay 4 ka mid ah 5 diyaaradood oo saldhigga joogay oo Sacuudiga lagu weeraray inaysan wax dhibaato soo gaarin laakiin waxa uu dhanka kale sheegay in markaa mid shanaad ay dhibaato yar soo gaartay taasna dhawaan ay dib u bilaabi doonto inay duusho wuxuu leeyahay 5 diyaaradood ay ahaayeen wax dhib ah soo gaar male haddana isla asagiya wuxuu leeyahay 4 waxba ma gaarin mida jug gaartay iyaduna wax weyn ma aha mar dhow waa la hagaajinayaa shaqadeedii bilaabaysa u leeyahay marka shaqadii ciidanka iyo wixii oo dhan odaga isaga isku ahaa la leeyahay ma fahamtay marka sheekadaas iyaduna wararka soo kordhay ayay ka mid tahay wali waxaynu ku jirnaa wararkii ugu dambeeyay ee tan intaynu kala maqnayn ee muhiimka ahaa ee dagaalka ka soo kordhay xarunta la yiraahdo Khaatimul Anbiya oo ay leeyihiin ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan ayaa war soo saartay haddaba xaruntaasi waxay sheegtay oo ay ka codsatay shacabka Imaaraadka inay markaa iskaga fogaadaan oo ay ka tagaan goobaha ay ku arkaan oo ay joogaan ciidamada militariga Mareykanka haddaba afayeenka xarunta Khaatimul Anbiya ee ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan waxa uu ka dalbaday shacabka Imaaraadka inay isaga fogaadaan meel alla meesha ay Mareykan ku arkaan iyo meelaha ay Mareykanka ku dhuumanayaan waayo waxay sheegeen inay iyagu raadsanayaan oo ay garaaci doonaan hoteeladii ku dhex dhuumanayaan meelihii dadka caadiga joogay galayaan saraakiishii Mareykanka nimankanuna waa daba socdaan waxa uu soo sheegaa kala sheeg hoteelkii ay tagaan waxa maqlay hotel hebel dariishadiisa daroona gashay marka hawsha iyaduna halkaas ay maraysaa dhanka kale wararka ka soo kordhay meeshii xirnayd Hormuz Trump gabgable waa furaya su'ulaha Iiraan mar walba way hadashaa yaa la idin ajarinay tirada been yaa la idin sheegay nimanka maraakiibta meesha jooga inta Trump beenadii sheegay hasku soo marinina meesha haddaba waa idin digreelay shirkadii leh markabka dawladii leh meesha ma la soo mari karo annaga ka talina cida rabno gudba alleena cidi kalena way joogaysaa haddaba marka war cusub ay soo saartay Iiraan oo ku saabsan Hormuz ayaan idin la wadaagayaa ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan waxay sheegeen dhaqdhaqaaqa ay sameynayaan maraakiibta shidaalka qaada ku sugan agagaarka Hormuz wali waa xaniban yahay wax dhaqdhaqaaqa oo halkaa ka jira ma leeyihiin ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan waxay tiri waan beegsan doonaa ama waa weerari doonaa isku day kasta oo lagu doonayo in halkaa lagu maro meeshaas cid isku soo mari karta ma jirtay
macalinka weyn asaga soo maro waa kaas dad kale warkooda iska dhaaf asaga ma mari karaa may. haddaba qaybtan barnaamijka waxaynu ku soo qaadanaynaa wararkii ugu waaweynaa ee soo dhacay tan iyo intaynu kala maqnayn. haddaba waxaynu ku bilaabaynaa ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ayaa waxay sheegeen saldhigyada Mareykanka inay weeraro culus ku qaadeen iyagoo isticmaalaya gantaalo iyo drones. waxay soo kale sheegeen inay isticmaaleen ciidamada badda. dhanka kale warbixinada kale ee soo kordhay waxaa ka mid ah taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ayaa waxay sheegeen inay duqeymo culus ku sameeyeen oo ay burburiyeen sida ay yiraahdeen makhasiino waaweyn oo lagu kaydinayay miinooyinka sida ay sheegeen iyagoo isticmaalay miinooyin iyo sawaariikh. waxaana ay weerareen weerarkii ay ku qaadeen jasiiradda la yiraahdo Kharak inay markaa beegsadeen goobaha miinooyinka iyo gantaalaha ay yaaleen. Iiraan iyaduna waxay sheegtay dhoofitaankii laga dhoofinayay jasiiraddii xalay Mareykanku weeraray shidaalka ee la yiraahdo jasiiradda Kharak inay si caadiya u socdaan oo weeraradii Mareykanka aysan wax dhibaato ah aysan u geysanin. haddaba waxay soo kale mas'uuliyiinta sheegeen in shidaalka Iiraan ee dekedda yaala uu meeshiisa yaallo hawshiisii dhoofintana ay socoto. haddaba dhanka kale Iiraan waxay sheegeen inay markaa garaaci doonaan oo weliba argoosi mid ah ay samayn doonaan meelaha ay ka yimaadaan gantaalaha. waxayna sheegeen dekedaha imaaraadka inay ugu baaqayaan in halkaa laga fogaado maadaama ay sheegeen in gantaalo lagu soo weeraray. wararkaas waxay ayeen kuwii ugu dambeeyay ee soo kordhay intaan barnaamijka ku jirnay oo kooban. haddii alla idmo wixii kaloo soo kordhaa barnaamijyada dambe ayaad ku daawan doontaan. like gareeya oo share gareeya barnaamijka haddaad cusub tahayna subscribe-ka ka iloobi youtube-ka facebook-gana follow gareey. ku xirnaada mar walba barnaamijyadeena xaqiiqda ku salaysan innagoo mar walba kasoo gudbina macluumaadka iyo wararka aan idiin soo gudbinayno hay-adaha wararka caalamiga. inta aan mar kale kulmayno nabadgelyo.